kuma jecli. laakiin sabab Sabab laan kuma jecli. ma igu ciyaaraysaa baas. May ciyaar maxaa keenay kuma jecli. laakiin intaadaan kaamirada horteeda igu sheegayso maad weyday meel ku habboon aad igu sheegtay inaad jeclahay. Qofku hadduusan ku jeclayn hadduu kaamira kugu sheegayo horteeda iyo haddii uu private kugu sheegayo public markasta waa kuma jecli. oo ka xaqiiqa xaqiiqaha ma jecli. maad igu ciyaaraysaa baas. ciyaar ma jirto. cabaas qalbiga bilaadanka in lagu ciyaara ma qurux badna. just bas wasaad intaan kuu sheegay kuma jecli. haye waayahay ugu salaamaya. Kalibi waa branki muuqaalkeena maanta sidan ayuu ku saabsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena. Magacaygu waa Cabaas Ilhaan. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay runtii sida aad ka soo aragtayba inta yar ee introska ama hordhaca ayaan ugu talagalnay muuqaalka inaan ku muujino topiga maanta aan ka hadlano nooca uu yahay waa brankiga lagu sameeyo ama dadka lamaanaha isku sameeyaan. يعني qofka uu lamaanaha leeyahay jacaylku kala dhaxeeyo yani family ay wada yihiin rankiga la isku sameeyo khasaaraha iyo waxyaabaha laga dhaxlo inaan maanta halkan idinku soo gudbino muuqaalkeenana maanta intaas ayuu ku saabsan yahay. waxaan idin soo gudbinaynaa 3 wax oo aad ku waayi karto qofka aad jeceshahay haddii aad baranki ku sameyso. waliba 3 waxyaabood waa 3 waxyaabood oo yani dark side ah yani tusaale ahaan oo kala dhanka madow ah. waxaynu ognahay labada qof ee isjecel ama nolosha wadaagay lamaanaha ah ama tusaale ahaan oo kale jacayl kale ama waxyaabo kale xiriir oo ka dhaxeeyo. haddii aad baranki ku sameyso qofka aad jeceshahay dabcan qof xiriir kala dhaxeeyo inta ugu badan waad jeceshahay. haddii aad baranki ku sameyso 3 waxyaabood oo aad ku waayeysid gebi ahaanba meesha ka baxaya idinkana keenaya inaad gebi ahaanba isku weydaan. ta koowaad waa kalsoonida waxaynu ognahay waxa koowaad ee xiriir ku dhismo marka koowaad marka la dhisayo. sida aad ogtahay qofka markaad jeclaanaysid ama uu xiriir aad doonaysid qofka inaad sameysaan waxaad tijaabinaysaa qofkan ma kuu kalsoon yahay adigu see ma ku kalsoon tahay. haddii kalsooni meesha aysan jirin wax gebi ahaanba shaqaynaya ama soconaya sidii la rabay dhanka wanaagsan u soconaya ma jiri doonto. gurigeena sida taqaanid guriga marka la dhisayo sees baa la sameeyaa. sees soma sees baa la sameeyaa. seeskaas haddii uu xumaado ama uu noqdo mid jilicsan oo aan markii hore laga baaran tegin guriga si walba oo kor loogu qaado waa kii aakhiritaanka soo dhaca ama duma. taasina waxay keenaysaa aasaaskii hore ee gurigan laga bilaabay ayaa jilicsan. dan kalsoonidu booskaas ay xiriirka ka taagan tahay. qodobkaas waa qodobka horta ugu muhiimsan ee aanad ku waayeyso qofkaaga haddii aad baranki ku sameyso. sidee ugu waayeysaa haddii isweydiino waxaad ugu waayeysaa qofkan kalsooni buu kugu qabay wuu ku jeclaa jacaylka kadib kalsooni aad u xeel dheer ayuu ku hayay. baranki waad ku sameysay kalsooni uu adiga ku hayo brankigaaga wuxuu u qaadanayaa reality yani xaqiiqo. tusaale ahaan waxbaad soo gaday gifti waxaad ku tiraahday markaa kan baranki buu ahaa. berri markaad mid xaqiiqo ah keento oo aan baranki ahayn just qofkan baranki aad ku sameysay horey kalsoonidiisii waa dishay kuma aaminayo. marka kalsoonidu waa shayga ugu muhiimsan ee labada qof isku haya. brankiguna waxa ugu muhiimsan ee uu dilo waa kalsoonida. qodobka labaad qofkan jacaylka uu ku hayo marka baranki ku sameyso hoos u dhac aad u weyn baa ku imaanaya. sababtuna waxay tahay qofka aad jeceshahay marka uu maanta adigoo jecel oo ku qanacsan oo raba oo ku faraxsan 100% marka uu ku yeero oo ku raado maanta kuma jecli kuma rabo kuma doonayo okay adiga niyad jab aad u fara badan baa kugu imaanaya. waad niyad jabaysaa waad warwaraysaa waad garanaysaa qof aad jeceshahay marka hadallada noocaas oo kale kaaga imaadaan intaad niyad jab lahayd oo dhan kadib qofkii uu ku ahaan jiray kuma ahaanayo
waayo suu niyadiisa aad buu niyad jabay adna hadhow toole waxayba ciyaar baad ka dhigatay kaale baraankii baan kugu sameynay okay qofkii baraankii baa niyadii ka gashay sooma in yar kadib wuxuu sameynayaa maalin kasta wuxuu ku fikirayaa qofkan goormuu ku imaanaya hadalkii uu maalintii kuuhi uu ku odhanaya markaasaa darteed qofkaaga si aanad u niyad jabin 100% waxaad ka dhowrtaa hadallada kaftanka hadallada dhacdhaca iyo waxaan baraankiga loo yaqaano hadda bulshada saameynta xoogaa ku haysta laba qof oo isqaba wax kasta isku sameynaya oo wallaahi ma fiicna runtii sida caadiga hadda dadka waliba dadka lamaanaha inta badan social media ku jira isticmaala brankigu wuxuu ka mid noqday waxyaabaha basic lifekooda ah tusaalahaan noloshooda waxyaabaha ka mid ah subaxii uu soo kacayaa brankigu sameynaya habeenkii markuu seexanaya brankigu sameynaya yacni noloshooda caadiga brankigu noqdo marka wax private ahaanaya horta ma jiro labada qofna kalsoonidoodii halkaasay ku dhimanaysaa oo qodobka labaad sidii qofkani kuu ahaa kuma ahaanayo shalay marka brankiga ku sameysay waxaa tiri waxaan brankigu ahaa qofkan maskaxdiisu waxay marka accept garaynaysaa wax walba oo qofkani keeno dee runka ahayd iyo hadday been ka ahaydba inuu branki yahay taasina waxay saameynaysaa jacaylkeedii kaydiga dhexeeya ee markaas kalsoonida iyo aaminaada ku dhisnaa in uu daciifo ugu dambeynna meesha uu ka baxo cabaasow mid kalena way jirtaa midi jirtaa waxay tahay qof maanta ninkaaga ku qaba amaba xaaskaagu in ay maanta gelinka hore baraankiga ugu sameyso ka dambe baraankiga ugu sameyso caawa marka lasii jibsanay baraankiga ugu sameyso anu waxaasoo dhan horta xaqiiqa uma arko in ay tahay wax runa oo bulshada loo soo gudbinayo inay tahay ilama ahan qofkana haddii ay baraankiga faraha badan leh ay ka qabsato waxyaabo badan oo noloshiisa saameynaya isagoo wuxuu ku ciyaarayo isleeyahay socialkaaga lacag kaga sameeya way jirtaa laakiin saacadaha qaar waxaa jirtaa ay samada furan tahay ilaahay wax aqbalo markaa qofkiisa markuu baraankii ku sameynayo waxa fiican inuu wax fiican uu ku sameeyo xataa haddii uu baraankiigu xaqiiqa yahay waxa fiican inuu wax fiican gabadhiisa usoo gudbiyo amaba ay gabadhu saygeeda usoo gudbiso wax qurux badan oo xataa haddii loo aqbalo u hirgala laakiin markaad soo gudbiso wax muxuu ahay noloshiina saameyn ku yeelanaya ama wax noloshiina burbur ku ah saacadaha samada furan tahay waa laydii aqbali karaa markaas taana iska daaya waan odhan lahaa qodobka saddexaad furfurnaantiina oo meesha ka baxda waxaan naqaanaa labada qof marka ay lamaane yihiin aad bay isugu furfurayeen yacni qofka aad guriga kula nooshahay ee lamaanahaga ah cidiisigima kendhowa aad baad iskugu furfuran tihiin waad isu dhowdihiin waad soo dhoola cadeynaysaan fara ka ciyaaraysaan kaftamaysaan then furfurnaantiinii faraha badneyd marka branki meesha soo galo waxa baxaysa kalsoonida ku kalsooneed qofkan inuu ku furfuran yahay macnaha dad tusaale ahaan qofkaagu maanta ninka kale shaqo markuu ka yimaado waxaa laga yaabaa caadi inaad u lahaydeen guriga markaad timaado in marwadaadu kusoo dhaweyso kugu faraxdo sometimes kula fara ka ciyaarto branki baad keentay maanta birina waad keentay saa dambe qofkii shalay iyo tii ka horeysay kuu sameynayay soo dhaweyntii furfurnaanta ahayd maanta wuxuu isdhahayaa nin qofkan branki buu wadaa yani reality wax xaqiiqa ma jiro kadib meesha way ka baxaysaa marka wixii furfurnaan la dhahayay dib bay idin kala gelaysaa cabsiga qofku abuuraysa qofku wuxuu ka cabsanayaa waxaanad ama lagaala hor yimaadaa waa branki markaa noloshii dhabta ahayd ee labadan qofi ku wada noolaayeen ee ay isugu yimaadeen ee qofka kale uu familkiisa uga soo dhex baxay gebi ahaanba meesha way ka baxaysaa marka waxaad noqonaysaa laba qof oo nolol social ah ku nool xaqiiqatan dad baa tusaale ahaan haddii aad xataa even aad social media isticmaasho kale ood ku jirto noloshaada privatekuna waa private it's your house gurigaaga unbay ku eg tahay noloshaada socialkuna waa tanaad bulshada la wadaagayso iyaduna ceeb maaha laakiin noloshaada privateka ah baa banaanka imaanaysa haddii branki meesha yimaado oo qofkana brankiga ku sameynaysaa wuxuu already wax kasta xaqiiq u qaadanaya marka dambana privateka meesha ka baxaysa waxaad noqonaysaa laba qof oo acting ku nool wax wada matala qofkan markuu hadal kula hadlayo matalaad bay ka tahay kan markuu waxaan kuu sameynayna matalaad bay ka tahay kalsoonida meesha ka baxaysaa si aysan taasi u dhicin waxa qurux badan inaad waxa brankiga la yiraahdo gebi ahaan baad lamaanahaaga ku sameynin si aad aan u waayin kalsoonida qofkan ku hayay
aaminaadii idiga dhaxaysay furfurnaantii suukiin furfuraysay furfurnaanta badan jacaylku ku kordhaa furfurnaantii suukiin soo dhaweynaysay sidaasan meesha uga bixin inaan buranka imaanin real life is a real life nolosha dhabtaa waa nolosha dhabtaa tan social media huna waa tan waxaana dad bulshada la wadaagaysaa si aysan taas u dhicin waa in la kala saaraa nolosha social media iyo nolosha private guriga lagu wada noolyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal haddii aad halkan la soo gaadheen aad iyo aad baan idin mahadcelin muuqaal kan lamid ama kasii qurux badan insha Allah waa idin soo wadnaa waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo salaam Allah